Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa qoraal ka soo saaray shirka Golaha Wada-tashiga Qaranka ee maanta ka furmay magaalada Muqdisho, isagoo sheegay inuu ku soo aadayo iyadoo dalku wajahayo hubanti la'aan siyaasadeed iyo duulaan shisheeye oo ay Itoobiya ku soo qaaday baddeena. Waxaan madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ugu baaqaya inay mas'uuliyad iska saaraan samata bixinta dalka, danta guud ka horumariyaan dantooda gaarka ah, kana fogaadaan muddo kororsi abuuraya khilaaf hor leh, xasilooni la'aan iyo hubanti la'aan siyaasadeed, sina kala dhantaalaya midnimada iyo wadajirka dalkeena iyo dadkeena, ayuu qoraalkiisa ku yiri Khayre. Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in sharciyadu ay tahay ruuxda dowladnimada, isla markaana uu xusayo dastuurka dalka iyo sanaadiiqda doorashooyinka rasmiga ah. Shirka ayaa waxaa kale oo looga wada hadli doonaa dhismaha dowladnimo iyo iskaashiga guud ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka si loo xaqiijiyo nabadda iyo horumarka dalka. Shirkan waxaa ka qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre, Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Saalax Jaamac, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam, Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor, Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Qabsoomidda shirkan oo waqti badan qaadatay kadib markii madax goboleedyada qaarkood ka cagajiideen kasoo qaybgalkiisa ayaa waxaa laga sugayaa in go'aan looga gaaro doorashooyinka maamulada oo intooda badan ay yihiin muddo dhaaf. Madaxweyne Xasan Sheekh oo ku adkeysanaya qabsoomidda doorasho qof cod ah, isla markaana diidan in lagu laabto doorasho dadban, ayaan la ogeyn sida uu madaxda ugu qancin doono qorshihiisa xilli madax goboleedyada qaarkood ay rabaan in loo fasaxo inay doorasho qabsadaan.